topic ku saabsan sideen ku noqon karaa qof dadka ka hor hadla ama qof aan dadka ka cabsanin. Topigaas ayaa maanta diiradda noo saaran. Haddaba waxaa ka mid ah astaamaha lagu garto qofka dadka ka hor cabsada. Waa marka ugu horeysa uu dadka ka soo hor muuqdo in uu dareen ahaan muujiyo inuu dadka ka cabsanayo ama hadal ahaanba. Waxaa ka mid ah qofka ay ku adag tahay inuu la doodo ama la sheekaysto dadka ka waaweyn, gaar ahaan waalidkiisa oo kale. Sidoo kale, xilliga fasalka iskuulka lagu jiro, way ku adag tahay inuu ardayda dhexdooda macalinka su'aal ku weydiiyo ama uu bixiyo jawaabaha uu macalinka rabo. Tani qodobkan aad ay u badan tahay. Waxaa jira arday badan oo xilliga fasalka lagu jiro macalinka aan su'aal weydiin karin. Su'aal haddii la weydiiyana aanan ka jawaabi karin, xataa haddii uu su'aasha garanayo. Sababta waxaa keenaysa qofka inuu isku kalsoonayn ama inuu yahay qof aad u cabsanayo. Waxaa kaloo ka mid ah qofka oo hadalka dhaqsi uga soo bixin, sidii qof haghagle oo kale ama qof hadalku ku dhagan yahay isagoo hadalkiisu caadi yahay. Sidoo kale waxaa ka mid ah qofka inay hadalkiisa ku badato ama in ama wax hadalla noocaas oo kale ah. Dhammaan waa wax iska caadi ah, badina dadka adduunkuba ay ka siman yihiin. Su'aashuuse waxay tahay, waxaanu ma wax joogto ah baa mise waa laga gudbi karaa? Cabsidan iyo dhibaatadan ku haysatahay ma wax joogto ah baa mise waa wax laga gudbi karo? Ugu horeyn, waa war farxad leh in dad badan oo maanta dunida caanka ah, weliba gaar ahaan marka ay noqoto inay ka hadlaan fagaarayaasha ugu dadka badan ee laga jeediyo hadal, ay sidaas oo kale ahaayeen sidaad maanta u cabsanayso oo kale u cabsan jireen. Maantana ay yihiin kuwo hadal iyo khudbado u jeediya malaayiin dad ah. Waxaa ka mid ah dadkaas Dr. Zakir Naik oo ah daaci islaami ah. Daacigan waa daaci caan ah oo intaasoo malyan oo dad ka hor hadla. Wuxuu ahaan jiray mid haghagale marka uu is yiraahdo hadal. Haghagale waxaan uga jeedaa inuu hadalka ku dhago ama qof hingoonaya uu kale u noqdo. Qofkaasoo caadi ah weliba asoon sidaas u dhalanin. Arrintaas waxaa ka keenaysa cabsida. Maantana waa adiga arkaya Dr. Zakir sida uu dadka ula hadlo iyo tirada dadka uu la hadlay sida ay u badan yihiin. Weliba asigoo ku hadlaya luqad aan tiisu ahayn. Bulshooyinka uu la hadlayo badanaa luqadooda ayuu kula hadlaa, asoo luqadiisa ku hadlaynin oo intaasoo malaayiin oo dad ka hor hadlayo. Waad aragtaa siduu u hadlo. Shalayna wuxuu ahaa qof aad u cabsi badan oo adiga oo kale ah. Sidaas oo kale ayaa haddii aad is leedahay codkar ma tihid ama haghag ayaad leedahay, aad uga gudbi kartaa caqabadaas haddii aad la timaado isla dadaalka ay la yimaadeen kuwii sidaas oo kale ahaa oo kaa horeeyay. Dadkii kaa horeeyay oo cabsan jiray dadaalkay la imaadeen haddaad la imaato, adigana sidooda oo kale ayaad noqon doontaa. Maan ahayn anigu mid ka soo dhashay isagoo fagaara dadka hadli kara. Waxaan xasuustaa markii iigu horeysay ee aan dad tiro badan la hadlo, wadnaha ayaa bugbug iidhi, aadna waan u naxay. Haddana waan hadlay, wax dhibna ima soo gaarin. Waxaan ka faa'iidaystay in sida aan moodayay aanu arrinku ahayn. Haddaba haddii aan sii wado oo aan wax badan la qabsan doono, siina horumarin karo. Waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka ka caawiya fagaara ka hadalka ama ka dhiga mid aan ka cabsan dadka horkooda inuu ka hadlo. Qodobadan soo socda. 1. Cabsida fagaara ka hadalka oo loo yaqaano fear of public speaking. Qofka oo fahma waxa ay tahay cabsidaani, sababta cabsida keenta iyo sida looga gudbi karo. Waxyaalaha ay dadyooga adduunka ka cabsadaan way badan yihiin. Waxaa ka mid ah mugdiga, xayawaanada qaar, xasharaadka, cudurrada, dhimashada, meelaha jooga dheer iyo kuwo kaloo fara badan. Waxaasi oo dhan markii la isku daro waxaa kaalinta koowaad ka galay xagga badnida dadka ka cabsada fagaara ka hadalka. Haddaba kuwa hore cabsidooda waxaa sabab u ah fuleynimo meelaha ama goobaha qaar, halka cabsida fagaara ka hadalka ay sabab u tahay kalsooni la'aan. Inaad xayawaan ka cabsato ama buur dheer inaad ka cabsato
waxaa keeni kara ayaa la dhihi karaa fulaynimo. laakiin dadka hortooda inaad ka hadasho inaad ka cabsato waxaa keeni karto kalsooni la-aan. kalsooni la-aantaasi ma aha mid uu qofka noloshiisa uu dhan uu wadi doono ama uu weligiis ahaan doono. waa mid la xiriirta waxa uu doonayo qofka inuu ka hadlo. tusaale, waxaas inuuna si fiican ugu kalsooneen ama uu isleeyahay si fiican uma diyaarinin ama aqoon fiican uma laha waxa uu ka hadli rabo, isla markaasina maadan isa soo tijaabin. waxaa kaloo ka mid ah sababta kalsooni yaraanta keenaysa waxa uu rabo inaan ka hadlo qofka uu aanu ka warqabin waxa uu ka hadlaayo iyo cidda uu la hadlaayo iyo meesha uu ka hadlaayo. qofka oon hadaf cad iyo qorshe intaba aana lahayn. qodobka labaad, waa maxay xirfadda ama majaalka nololeed ee mustaqbalkaaga? maxaa jeclaan lahayd inaad dadka kala hadasho ama aad u jeediso si aad u hormariso? waa muhiim horta waxyaalaha aad jeceshahay inaad dadka kala hor imaato inaad ogaato si aad waxaas isaga diyaariso ama aad u hormariso. xirfadayaashaada fagaara ka hadal. ma inaad macallin noqoto ayaad jeceshahay oo aad arday u jeediso daruus? ma inaad daaci noqoto oo dadka diinta barto? ma inaad khudbadaha jimcadaha jeediso? ma inaad ganacsado noqoto oo aad wax soo saarkaaga iyo guulahaaga aad dadka la wadaagto oo marketing noqoto? ma inaad siyaasi noqoto oo hadal karo dadka afka ku qanciya kana hadla arrimo dal iyo umadeed? ma inaad wariye noqoto kana howlgasho warbaahin oo isgaarsiin sida idaacadaha iyo muuqaal baahiyaasha? ma inaad arrimaha bulshada ka shaqayso dadkana wacyigeliso? shaqooyinkan iyo tobanaan kale oo la mid ahba dhammaan waa kuwa u baahan qofka inuu yaqaan horumariyana xirfadaha fagaara ka hadalka. haddaba adiga shaqsi ahaan ma kuu caddahay hadda meesha aad isleedahay way tahay inaad usii tababarato? waa qodob muhiim oo ka qayb qaadan kara in xal loo helo caqabadaha kaa hor istaagi kara fagaara ka hadalka oo ah cabsida iyo codkar la-aanta. qodobkeena saddexaad, halkaas waxaan uga soo gudubnay qodobka labaad. qodobka saddexaad, kor qaadista ama qofka kor inuu u qaado xirfadiisa nololeed, life career development aa loo yaqaanaa. qodobkan wuxuu la xiriiraa qodobka ka horeeyay, muhiimadiisa gaarka ahna wuu leeyahay. kadib markii aad ogaato xirfadaada nololeed ama markaad ogaato meeshaad diiradda saari lahayd, isku day inaad horumariso xirfadaas. tusaale ahaan, waxaad go'aansatay wariye inaad noqoto.